Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran yool 24 kusoo dhawaada casharkeena maanta. Haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir oo subscribe noo saar. Haddii aad hore noola joogtayna videoga like saar si uu gaadho asxaab badan. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qaabka perfect money lacag loogala baxo adigoo kula baxay application-ka tufaax ama sariflaha tufaax kaasoo lacagtaada kugu shubaya lambarkaaga perfect money-gana kaaga soo saaraya. Application-ka tufaax oo ah sarifle caanaha kaasoo aad Play Store-ka kala soo degi karto. Tufaax waxa uu ka caawinayaa inuu lambarkaaga lacagta kuu soo dhigo isagoo perfect money kaaga soo saaraya. Aniga hadda lacag ayaa iigu jirta perfect money-gayga, waxaan doonayaa bal inaan lacag kala soo baxo oo aan lacagtaasi kusoo wareejisto sim card-kayga. Marka ugu horeeya waa inaad soo daawato casharka perfect money-ga iyo sida loo samaysto. Waxaan ku xigsiin doonaa cashar kale oo ah perfect money sida lacagta loo dhigto. Casharkani waxa uu noqonayaa casharkii application-nada sida aan lacagta ugu soo shuban lahayn aan u samaysan lahayn, si aan website-dada uga shaqaysano iyo si aan application-nadan intaan lacag ugu shubano aan hadhowna website-dada lacagta inooga baahan aan lacag ugu dhigano, lacagtana aan uga soo saarano. Marka koowaad perfect money ayaan samaysanaynaa haddii aanad lahayn. Casharkaana waan diyaariyey oo wuxuu ku jiraa YouTube-ka yool 24 oo aad ka heli kartaa haddii aad baadho. Marka koowaad waxaan tegayaa iminka perfect money-gaygan ayaan furayaa, waxaanan gelayaa perfect money-gayga. Kadib waxaan gelinayaa kabshahaas. Markaan kabshaha geliyo wuxuu ii diray odhanayaa login kabshaha gel. Kadib markaan kabshaha geliyo wuxuu ii dirayaa code yar. Code-kaasina waxa uu igu soo dirayaa Gmail-kii aan perfect money-ga ku samaystay. Waa inuu Gmail-kaaga noqdo mid shaqaynaya haddii aad mobilkan ka guurto iyo haddii kaleba aad garanayso password-kiisa marka aad perfect money-ga ku samaysanayso. Marka videoga waan xirayaa, marka waxaan idin geyn doonaa qaybta lacagta iigu jirto. Kadib marka aan saa u soo galo perfect money-gu waxa uu kala baxaa qayb euro ah oo qaybta euro ayaa raacsan, qaybtana USDT ayaa raacsan. Qayb kastoo ay USDT raacsan tahay wixii dollar ah ayaad ku soo diran kartaa markaad website-dada ka shaqaysato. Haddii aad lacag euro soo diransana euroda ayaad ku soo diran kartaa. Marka hadda aniga USDT-ga waa kan waxa iigu jira $18. Waxaan doonayaa bal inaan ka saarto $16 oo lacag ah. Marka aan doonayo haddaba inaan lacag ka saarto waxa aan gelinayaa member ID-gayga ayaa la iga doonayaa. Kadib member ID-gayga ayaan gelinayaa. Marka aan doonayo haddaba inaan lacag ka saarto waxaan tegayaa application-ka tufaax. Application-ka marka aan saa u soo furo isagana waxa aan ku buuxinayaa lambarkayga saad kale kolba kii aan haysto. Kadib lambarka marka aan geliyo code buu ii soo dirayaa. Code-kaasna wuxuu igu soo dhacayaa qaybta message-ka ee mobilkayga ee lambarkayga ku xiran. Kadib code-kaas ayaan gelinayaa. Intaas oo kaliya ayuu iga baahan yahay. Bal iminka tufaax aan furno. Wata tufaax waxa iminka ku samaysan lambarkayga ayaa ku samaysan oo lacag hadhaaya ayaa iigu jirtay oo 10 senti oo aan kaga tegay. Labadan qaybood ayuu u kala baxaa. Qaybtan waa lacag dhigasho oo waxay u taagan tahay inaad halkan lacag soo dhigato. Qaybtana halkan inaad lacag kala baxdo ayay u taagan tahay oo lacag la bixid. Marka lacag dhigasho marka aad leedahay lacagta ayaad halkan soo dhiganaysaa. Marka aad lacagtii halkan taali la baxaysana lacag la bixid ayaad leedahay. Marka lacag dhigasho ayaan tegaynaa. Lacag dhigasho marka aan tagno waxaan ka sii tegaynaa perfect money, EV, Bliss, Telesom, Golis intiiba uu leeyahay. 1xbet waa 1xbet-ka dadka isticmaala ayaa ka dhigta inta badan. Perfect money-ga ayaan haddaba anigu tegaya waayo waa halkan aan lacagta ka soo saarayo. Kadib markaan perfect money ku dhufto waxaan kusii dhifanayaa process markaan idhaahdo. Kadib process markaan idhaahdo halkan waxaan soo gelinayaa perfect money-gayga qaybtii dollarka code-kiisa ayaan soo qorayaa. Marka qaybta dollarka ee aan soo geliyay waa tan. Qaybtan ayaad soo qoraysaa lambarka halka ku qoran. Kadib marka aad soo qorto halkan waxa aad gelinaysaa amount-ka lacagta aad kala baxayso. Marka aniga hadda waxaan kala baxayaa $15 ayaan kala baxayaa. Process payment baan leeyahay. Kadib markaan idhaahdo process payment wuxuu leeyahay ma kala baxaysaa oo lambarka magacii ayaan ku sameeyay ayaa halka ka muuqda. Adigana magacaaga hadduu ku soo bixi waayo waxaa qaldan lambarka aad ku samaysay. Marka halkan ayaad leedahay process payment, haddii kale lambarkaas ayaa iska soo bedelsaa oo cancel ayaad leedahay.
process payment qaybtan ayuu inoo furayaa. Kadib qaybtanna wuxuu ku leeyahay perfect money, miyaad kala baxaysaa mise lambarka cardka ayaad kala baxaysaa. Marka taa ay taagan tahay unbaan tigta ku doonayaa, make payment ayaan leeyahay. kadib markaan make payment iraahdo, halkan waxaan soo gelinayaa ID-ga aan ku isticmaalo. ID-ga marka aan soo geliyo oon qarinayo ID-ga iyo passwordka, halkana caption yar ayaan gelinayaa. Marka payment ayaan odhan doonaa. kadib marka aan soo dhamaystirno, waxayna leeyahay code ayaan kuugu dirnay gmail-ka aad perfect money ku samaysay. halkan ayaan gelinayaa code-ka, ayaan soo qoranayaa. kadib markaan code-ka soo qorno, halkan ayaan gelinaynaa code-kii oo aan copy ku odhanaa. copy markaan ku nidhaa paste ayaan ku leeyahay. kadib continue ayaan leeyahay. kadib continue markaan idhaahdo, wuxuu leeyahay code-ku waa qalad. kadib code-ka markaan soo gelino, waxaan si leenahay confirm. wuxuuna leeyahay lacagtaas ayaa lagaga saarayaa 15, waxaana perfect money-ga ka goosanaya 9 senti oo lacagtii kale ee gudaha kugu sii jirto baa laga goynayaa. kadib confirm ayaan leeyahay payment. kadib markaan idhaahdo confirm payment ayaan leeyahay. wuu wareegayaa, wuxuu leeyahay continue side oo mar kale waad ogoshahay soomaha, weli waana lasii weydiinayaa. waad ku guuleysatay continue side. markaan continue idhaahdo, saas ayay u wareegaysaa. waxaa degdeg u soo baxaya marka qaybtii tufaax ayaa ka noqonayna continue. go home ayaan leeyahay. home marka aan imaado tufaaxii saa usoo galo, watan lacagtiina soo gashay. haddaba lacagtii iminka tufaax ayay weli ku jirtaa, oo taas lacagta $15 ayaad kasoo saaratay ayuu leeyahay. marka tufaax ayaan doonaynaa haddana inaan lacagtii kala sii baxno. marka waxaan leenahay lacag la bixid. marka lacag la bixid tegino, kolba lambaradan kaad isticmaasho ayaad geeshanaysaa. marka Telesom baan isticmaala, Telesomteeda ayaan lacagta ku diranayaa. kadib Telesomta markaan saaraa process ayaan leeyahay. kadib wuxuu leeyahay lambarkaagu waa kaas, ma doonaysaa in lacag lagugu diro. kadib halkan waxaan gelinayaa lacagta ku jirta oo dhan. kadib markaan geliyo lacagta, isaga ayaa ka goosanaya markaa sarifkiisa. markaa 15 ayaan gelinayaa iyo 10 senti oo igaga harsanaa markii hore. kadib checking payment ayaan leeyahay. marka yes ayaan leeyahay. yes markaan idhaahdo, waa kaas lacagtii oo dhan waa saaray. marka waa ka 15. marka qaybta saadkeena ayaan ka eegaynaa lacagtaas inayna soo gashay. perfect money-geenina waan eegaynaa intii hore uu jirtay iyo inta uu ka gooyay. wata lacagtii wayna soo gashay, waxayna soo galay 15 baan soo saaranay. 13.68 ayaasna soo galay. waxaa go-ay lacag ilaa $1 iyo badh ah ayaa iga go-day, oo ah sarifkii tufaax ay goosatay. waa lacag $1 iyo badh ah, oo lacag aad u badan. fideogeena intaas ayaan kusoo koobayaa. fideoga ku xigaana waxa uu noqon doonaa qaabka perfect money lacag loo dhigto. waxa kaloo aan soo diyaarin doonaa casharo kale oo sida internetka looga shaqaysto. fadlan markasta fideoyada waa daawataan, balse like ma saartaan. fideoga waxaan idiga codsan lahaa in markaa aad dhamaysataan like saartaan si uu asxaab badan u gaadho. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.